السلام عليكم. soo dhawaada maanta insha allahu tacaala waxaa ka hadli doonaa wax la yiraahdo layers of the heart. Okay, waxaa ka hadlaynaa layers of the heart. cashirka hore introduction ayaan usoo hadalnay. maanta waxaa ka hadlaynaa layers of the heart, jidaariyada ama derbiyada uu leeyahay wadnaha, waxyaabaha uu ka kooban yahay ayaan rabnaa inaan ka hadalno. Wuxuu ka kooban yahay 3 layer ayuu ka kooban yahay. midkood waxaa loo yaqaanaa pericardium, mid kale waxaa loo yaqaanaa myocardium, midka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa endocardium. So saddexdan waa muhiim marka waana layers of the heart. Okay. So halkan ila fiiriya sawirka, this is the waxaa dhana heart. Zoom aan soo sameynay jidaris of the heart. Zoom ayaan ku sameynay waxay ka samaysiin ayaan rabnaa inaan fiiriyo. Okay, this is waxaan dhana waa endocardium. Endocardium waa kana. This is the endocardium. Because endocardium macnihiis maxaa waaye? Endocardium macnihiis waxaa waaye waa layerka innerka ah, okay, oo gudaha ku jiro. Waxaa loo yaqaanaa waa innermost. Okay, waa innermost layer. So marka innermost layer waxaa loo yaqaanaa endocardium. Okay, waxaa ku xiga endocardium, waxaa ku xiga waxa la yiraahdo guduudkan u jeedin waa myocardium. Okay, myocardium waa muhiim because myocardium ayada shaqadeeda maxaa inta u badan waxay sameysaa waxa la yiraahdo pumping action. Okay, qaybta heartiga waa muscular organ, asiga waa muscular, so shaqadiis maxaa waaye pump. So marka myocardiumka waxay muhiim u tahay wadnaha. dhiig markii la tuurayo contractionka ayaa sameynaya myocardiumka ayaa sameynaysa. Okay, so marka waxaa dhana endocardium wuxuu ka horeeyaa myocardium waa innermost layer. Myocardium, this is marka saddexdan way iswataan, waxaa loo yaqaanaa pericardium. Pericardium. So marka pericardium waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo qaybinayna pericardium. waxaa u qaybinaynaa qayb la yiraahdo parietal pericardium iyo visceral pericardium. Visceral pericardium magac kale ayaa loo yaqaanaa. magac kale oo loo yaqaano maxaa waaye waa epicardium. So haddaa aragtid epicardium iyo visceral pericardial layer waa isku. So macnaheedu waxaa waaye parietal pericardium macnaheedu waxaa waa qaybta outerka jirta waa. Okay, qaybtan waxaa loo yaqaanaa, qaybtan waa parietal pericardium. Okay, qaybtan gudaha ku jirtana waxaa loo yaqaanaa visceral pericardium. Okay, qaybtan maxaa loo yaqaanaa visceral or epicardium ayaa loo yaqaanaa. So visceral pericardium waxaa ujeedin marka labadan waxaa u dhexeyso space u dhexeeya marka. Okay, spaceka waxaa loo yaqaanaa marka pericardial cavity. Cavity marka aan ku celiyo hal mar. waxaa dhaanay layers of the heart waa 3. midkood waxaa loo yaqaanaa pericardium. Okay, pericardium laba qayb ka kooban yahay. waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waa parietal pericardium iyo visceral pericardium. Okay, parietal pericardium waa qaybta banaanka, waa qaybtan aan ujeedin waxaa loo yaqaanaa parietal pericardium. Okay, this is gudaha ku jirtana waxaa loo yaqaanaa visceral pericardium. labadooda waxaa u dhexeysa marka layer cavity u dhexeeyo. So cavitygaas waxaa loo yaqaanaa marka maxaa loo yaqaanaa pericardial cavity ayaa loo yaqaanaa. Okay, waxaa dhaanay waxaa ku xigo myocardium, sidoo kale waxaa gudaha kusoo jiro waxa la yiraahdo endocardium. Okay, sidoo kale waxaa meesha aanan ka marnayn marka ka hadlayno maxaa la yiraahdaa pericardiumka marka ka hadlayno qaybtan waliba khaasatan parietal pericardiumka waxay leedahay laba qayb oo loo qaybiyaa. Okay, fibrous layer iyo waxaa loo qaybiyaa serous layer. Okay, xitaa waxaa dhihi karnaa, xitaa ila fiiriyo waxaa dhihi karnaa qaybtan tusaale ahaan oo kale this is the waxaa dhaanay waa endocardium. This is waxaa dhaanay waa myocardium. This waxaa dhaanay waa qaybta visceraha. qaybtan waxaa dhaanay waa qaybta parietalka. Spacekan waa pericardial cavity. sidoo kale waxaa sii dhihi karnaa waxaa jirta waxa la yiraahdo fibrous layer
isoo kale waxaa jira waxa la yihahdo serosal layer. Okay, waxaa jira waxa la yihahdo serosal layer iyo fibrosal layer. Fibrosal layer muhiim ay u tahay heartiga because waxay ka difaacdaa waxa la yihahdo heartiga ay difaacdaa. Okay, halka serosana ay ka samaysan tahay waxa la yihahdo mesothelium. Ay ka samaysan tahay waxa la yihahdo mesothelium. Mesothelium-kaasna muhiimadiisa waxaa waaye inuu soo daayo fluids. Fluidkaasna intuu badan wuxuu ku jiraa pericardial cavity. Pericardial cavity. So marka bilateral pericardium laba loo qaybiyaa. Waxaa loo qaybiyaa visceral and fibrosal layer iyo serosal layer. Okay, so that's the main importance of the layer of the heart. Haddii aad fahantay pericardium, myocardium, endocardium, layer of the heart waa fahantay. So thank you so much. Next lecture inshallah.